waxa laga yaabaa inaad mar u maqashay nano banana ma xitaa adeegsatay balse run ahaantii aanad fahmin awoodda dhabta uu leeyahay dad badan waxay u arkaan si tuul caadi ah laakiin anigoo isbuuc hore waxaan ku bixiyay saacado badan oo tijaabo iyo baaritaan iskugu jirta natiijadii aan helay waxay noqotay mid qof kasta ka yaabin doonta waxaan ogaaday in nano banana kaliya ahayn ay ka caawinayso shaqooyinka yaryar balse uu dhab ahaantii leeyahay awood uu saaxadda kaga saari karo Photoshop waxaad maqasho waa sax waxaa jira farsamooyin iyo trikyo yaryar oo haddii aad si sax u barato waxay ku badbaadin kartaa saacado badan oo ku bixin lahayd editing-ka sidoo kale ganacsatada iyo dadka ku shaqeeya online-ka waxa uu ka caawin karaa inay si fudud u sameeyaan sawirro xayeysiin oo soo jiidasho leh halkaas oo iibkooda kor u qaadaysa waxaana ka maqnayn dadka graphic designeradu waxay ku sameyn karaan shaqo aad u badan iyagoo ku qabanay muddo yar oo adeegsanay ayaga nano banana waxaan ku ballan qaadayaa haddii si sax ah u fahanto oo si sax ah u adeegsato nano banana inaad noqon doonto qof ka sarreeya kuwa kale ee xirfadlayaasha marka fadlan la joogi lahayo dhamaadka muuqaalka si aad wax badan uga fahanto haddii aad u baahantahay inaad barato video editing adigoo adeegsanaya mobilkaaga waxaan kuu diyaarinay koorsooyin tayo sare leh fadlan iska soo diiwaangeli linkiga description-ka yaala waa maxay nano banana waa aalad casri ah oo AI ah oo loogu talagalay in lagu abuuro laguna tafatiro sawirada si degdeg ah oo tayo sare leh waxaana soo saartay shirkadda Google barnaamij gudagallo qaabka ay u adeegsan karaan dadka xirfadlayaasha sida graphic designerada iyo video editing-ka iyo dadka caadiga iyo sidoo kalena dadka ganacsadayaasha markaan doonayno inaan markaa soo furano nano banana waxaan tegi doonaa markaa Chrome-kaaga ama markaa waxa kugu jira browser-kaaga tegi doontaa kadibna waxa ku qori doontaa markaa Gemini ba ku qori doontaa kadibna waxa dooran doontaa markaa gemini.com ba dooran doontaa markaa Gemini saa u soo gasho markaa page-kan ayaa ku keeni doona automatically kadibna halka tool ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa markaa tool ku dhufato halkan waxaad arkaysaa markaa create images meesha ay ku qoran tahay create images ayaad markaa ku dhufan doontaa hadda waxaan rabnaa inaan markaa soo gelino sawirkan markaa dhinacan kaaga muuqda inaan ku nidhaahno markaa gacantaas iyo markaa Coca-Colahaas yani gacanta imka faantada haysa ama sharaabka kala haysa ku bedel Coca-Colahaas ayaan oran doonaa oo ka codsan doonaa markaa Gemini kadibna waxa soo qori doonaa promptigan kadibna waxaan leenahay markaa submit ayaan leenahay bal waan sugi doonaa natiijada inoo soo saaro waxa inoo soo saaray markaa sawir aad u qurux badan oo markaa la moodo inuu markaa ninku hayo Coca-Cola xaqiiqiya markaa halkaas inuu ka codsanay markaa sawirka originalkiisu san ahaa kadibna markaa laga dhigay markaa sidan kale markaa okay bal waxaan ku tijaabin doonaa markaa sawir kale oo ka codsanayno markaa inuu markaa ninka Shahrukh Khan ama actor-ka weyn Shahrukh Khan uu u galiyo markaa koodhkan dhinacan kaaga muuqda koodhka inuu u galiyo actor-ka Shahrukh Khan ma ka codsan doonaa kadibna waxaan ku qori doonaa markaa promptigan dhinacan ayaan ku qori doonaa waxa inoo soo saaray markaa natiijo waaliya oo sawirkii markaa jaaketkan ka codsanay ayuu markaa tabteedii ugu geliyay markaa ninkii Shahrukh Khan okay markaa waxaan ku sii socon doonaa tijaabooyinkeenii oo waxaan ka codsan doonaa markaa inuu sawirka la soo geliyo tusaale ahaan oo kale inuu markaa ninkan halkan jooga markaa kalluunlaha ah in markaa aan markaa kalluunka meesha ka saarno gabi ahaantiisaba markaa kalluunka markaa meesha ka saarno waxaan sameyn doonaa markaa in markaa gacmaha sidaa uu u hayo oo kale inuu u sii hayo markaa si kalluunka kaliya laga saaro markaa sawirka kaasano waxaan ku markaa qori doonaa markaa promptigii baan ku qori doonaa kadibna submit baan leenahay oo waxaan sugi doonaa natiijada inoo soo saaro markaa natiijadu waa natiijo waaliya waxaad aragtaa inuu kaliya kalluunka meesha ka saaray oo markaa tabtii u taagnaa ninku u taagan yahay wali marka waxaad u adeegsan kartaa thumbnailiska in markaa sawirka lagu soo diro aad markaa wax ka saarto waxna markaa ka dhinto Photoshop-kana meesha uu ka saaraya saad aragtaan intaad ka marlaad dhibaato aad far badan kaliya waxa ka xiga inaad prompt yar oo gaaban aad meesha ku qorto okay marka hadda waxa isweydiinaysaa sidee ayaan markaa ku helaa ama sidee ayaan markaa ku sameeyaa promptyadan aad iyo aad bis kaga fududaysaad markaa sawiratan ama promptyadan aad ku sameynayso marka koobaad waxaad tagi doontaa Pinterest aad tagi doontaa marka Pinterest aad tagto waxaad markaa soo raadin doontaa markaa sawir ku qanciyay ama aad markaa ka heshay in lagaaga dhigo markaa sawiraanta tusaale ahaan waxaan soo qaadan doonaa markaa sawirkan ninka kursiga ku fadhiya ee markaa carshiga ku fadhiya kadib waxaan sameyn doonaa inaan ninkan soo dhowlgareysano download image baan ku dhufan doonaa kadibna waxaan imaan doonaa markaa ChatGPT baa imaan doonaa
marka ChatGPT nimaano sawirka aan soo dhowlgareysanay ayaan marka meesha marka ku basti gareyn doonaa marka ama aan meesha gelin doonaa marka waxaad ku qori doontaa iiga qor prompti saan marka sawirkayga looga dhigo saan oo kale kadib halkan waxaad ku haysataa waa promptigii dhammaystiran oo marka kaaga dhigaya marka sawirkaad u diri doonto Gemini marka mid professional ah kadib promptigan qaadan doonaa waan soo koobiyin doonaa waxaan marka tagi doonaa marka Gemini baan tagi doonaa okay marka Gemini tagno waxaan soo qaadan doonaa marka sawirka adigu aad leedahay tusaale ahaan oo kale sawirkan Somali editor ma soo qaadanay kadibna promptigi aan soo qaadanay ayaan meesha ku basti gareynay kadibna waan u dirnay bar waxaan sugi doonaa natiijada iyo habka uu soo saaro marka Gemini sawirkeena hadda u dirnay wow waxa uu ka dhigay marka sawirkan u dirnay mid la mid ah sawirkii oo marka aad iyo aad u qurux badan okay bal waxaan ku tijaabin doonaa sawir qof caadi ah ku tijaabin doonaa maadaama kaasi ahaa characterka Somali editor bal waxaan ku tijaabin doonaa marka sawirkan caadiga ah hore u adeegsanay Shahrukh Khan bal isagana nooc ka soo saaro ayaan fiirin doonaa wow waxaad aragtaa marka in sawirkii barteedii la dhigay oo marka Shahrukh Khan oo kursiga ku fadhiya la sameeyay okay saaxiib hadda waxaad baratay sida loo sameeyo promptiga iyo habka loo adeegsado marka Nano Banana waxaan rajaynayaa muuqaalku wax badan ka fahamtay fadlan naga ilaawin like ta subscribe iyo share ta soo muuqaalka u gaadho haddii aad u baahan tahay promptigeedan aan isticmaalo oo dhan commentiga ku soo qor prompti waa sida iyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh